wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Hindo Jaamac Xirsi Gaani oo ka mid ah wafdidii ballaadhneed ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee howlaha nabadeynta u joogtay magaalada Celaf Weyn iyo gobolka Sanaag ayaa markii ay ka soo laabatay waxay xariga ka jirtay xafiis cusub oo ay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska ku yeelan doonto degmada Garadag iyadoo xafiiskan noqonayo xafiiskii ugu horeeyay ee wasaaradda ku yeelanaysa degmada Garadag munaasabada xariga jarka oo wasiirku hadallo kooban ka soo jeediyay isla markaana dadweynaha reer Gadag uga mahad celiyay soo dhaweyntii ballaadhneed ay u sameeyeen ayaa sheegtay inuu xafiiskan noqon doono mid loogu adeego dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Garadag isla markaana laga helayo adeegyadii wasaaraddu ay qaban jirtay kadis ayaad igaga dhigteen arrintan waxaan doonayay oo ujeedkaygu ahaa inaan sii maro degmada Garadag aniga oo fulinaya ama wiirta madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah in maamul daadejin ay samayso xukuumaddu gobolada bari gaar ahaan gobolka Sanaag iyo gobolka Sool dhammaan wasaaradahana laga furo xafiisyadooda iyo ku talagalkooda sidaa darteed ayay ahayd ujeedadii aan idiin soo maray in aan ka furo xafiiska wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ay ku yeelanayso degmada Garadag kaas baan ujeedadaydu ahaa inaan idiin soo maro aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa qoqaasha iyo waxgaradka Garadag halkan oo ah gurigii nabadda mar kastaba lagu go'aamiyo wax kasta oo guul u ah qaranka Soomaaliland waxaan idinka mahad celinayaa sida aad xukuumadda mar walba u barbar taagan tihiin waxaan idinka codsanayaa inaad isbarbar taagtaan guddida nabadeynta iyo ergooyinka kala duwan ee ku sugan degmada Celaf Weyn halkaas oo ay shaqaaqa ku dhexmartay walaalaheen waxaan idinka codsanayaa dhammaan inaynu ka wada qayb qaadano inaynu madaxweynaha qaranka oo hawl wad badan iyo juhdi badan geliyay in arrinta maslaxad lagu dhameeyo inaynu isgarab taagno dhamaanteen inagoo isku mid ah xariga jarka xafiiskan cusub ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska ku yeelanayso degmada Garadag ayaa hadallo kooban waxa ka soo jeediyay isaguna maarka degmada Garadag mudane Faarax Aadan Ciise isagoo wasiirka ku soo dhaweeyay degmada Garadag waxaan soo dhaweynaynaa hal iyo laba ku soo dhaweynaynaa ayaan kugu soo dhaweynaynaa mudane wasiir waxa loo leeyahay magaaladaadii oo Garadaga oo haweenka deegaankaadii ka mid ah ku soo dhawo baan leenahay waxa halkan jooga haweenweynihii Garadag oo ururadii haweenka garboodi kala duwanaa shaqaalihii dawladda ururadii bulshada oo dhan ee golii deegaanka wixii baan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad waa madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.